nimayo xalaalay gilgilay gelin dhexaadkiiyo gacalkiiyo raggaygii go-aan soo garwaaqsaday gogashaan ku jiifaan ka kacay gocashadaydiiyo sidii habar gablama suudiyow giidu waaniyo geeridii ikhwaankiibaa i gubay gocashadoodii rabbi waxaan galliimanahayaa inaan goboobaye soo dhawaada daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii sahanka sugaanta maanta waxaan kusoo qaadanaynaa qeybtan halmuceedyo uu leeyahay sayid maxamed cabdilla xasan oo ka mid a maansooyinkii mugga iyo miisaanka lahaa aan idinka soo minguuriyey 10 halmuceed 10 halqabsi ayaan idinla wadaagi doonaa haddii rabbi halgamaagii aasaasaha daraawisheed ahaa wuxuu yidhi sayidku waa duni ninkii sadar bartaa sababi diinkiiye waa duni siyaadada la siin haaf sarkaaliyahe waa duni sarkaalkiiyo ardadu wada sinjaareene waa dunida soomaalidii laga santaagay waa dunida sareedada la qubi suluxa caanoode waa dunida saaq lagu gataa saraba guddheer waa duni aan lagu soo rahayn siira ku timiye waa duni sokeeye iyo xidid kala sawaaleene waa duni abaal laga samroo samala diida mar kale waxaa laga hayaa sayid maxamed gabaynimaan shib ka ahayn misna shaacir ku ahayn gabaynimaan shib ka ahayn misna shaacir ku ahayn aan shaqalka ugu dhigin madka iyo khifiga shaqal oo xarafku sheegiyo xuduudaha shirabi karin oo shooliyoo odhan shafkaygay wax jiifaan sheegay midkaasuna isna waa shidii hoog halabuur buu sheeganayaayo medka shaqalka iyo shibanaha gabayga hojiska iyo hooriska ma kala saaraya ayuu leeyahay wuxuu haystaa ragga gabayga tiriya hase yeeshee aan nuunadda u yeelin nimayo xalaalay gilgilay gelin dhexaadkiiyo gacalkiiyo raggaygii go-aan soo garwaaqsaday gogashaan ku jiifaan ka kacay gocashadaydiiyo sidii habar gablama suudiyow giidu waaniyo geeridii ikhwaankiibaa i gubay gocashadoodii rabbi waxaan galliimanahayaa inaan goboobaye ilaahay ku naxariis waa calaacal iyo tiraanyo asluubaysan odayada gabooba marbay gaban ahaayeene guxushaaga aan kicinba waa gaaranaan jiraye niman guuyo abid yeelan baa geelal foofsada nin caydh burdugan ahaa caydh farmadow ahaabaa maalin ilaahay dunyo soo geliyaayo markaasuu dadka hodanka ah ku biiraa sidii eebbahay wax u baxshaa waa u bannaan tahayna waa kii uu odhan jiray abwaankii kale waxa gabar qaryada loo togtaa guur ha kuu qumo ee qoys weyn waxa loo dhistaa qani gobaadeed ee qadhlo awra waxa loo rartaa qaadka iyo xoogee waxa qayli loo xiranayaa qurux asluubeed ee qaraafiicda waxa loo toshaa saydho qodaxeed ee masallaha waxaa loo qabsadaa qiro salaadeed ee culimada waxaa loo quweyn waa qob iyo dhowre wax munaafaq loo quursadaa qowlka beenta ah waxaa qoorta loo jari kufriga qiil ku waajibee ilaa ku naxariis mustaqiinimaa loo hadlaa mar kalena waxaa laga hayaa inuu yidhi mustaqiinimaa loo hadlaa muranku waa ceebee nin waliba maroor iyo qas iyo muran hadduu keeno goortii markhaatigu dhacaa mowdku ka adeeg musuq maasuq soomaali waa meheradeediiyo hadba midab horlay kuula iman maalin daa'imehe malahmalahda iyo baanaha mowdku ka adeeg waa tixdii mowdku ka adeeg tudci ka mid a mar kalena waxaa laga hayaa sayidku inuu yidhi haddaan waayey calan layna shiro tan iyo nairobi miyaan waayey naamuus janiyo daalac iyo naasil haddaan waayey ciidoo naqliyo inaan nugaal daaqo miyaan waayey neef aan xarbada naallo ugu fulo
haddaan miyaan waaye neef aan xarbadan allo ugu fuulo, haddaan waaye ruux iga naxo ii nasabad sheegta, miyaan waaye naxariis alliya nabiga jaahiis. allahuma salli calaa sayidina maxamed. ilaah ku naxariis. waxayna tusaysaa haanka iyo himilada inuu ku hayay sayidku dowladnimo dalka soomaaliyeed oo dhan intii soomaali degto wada gaadha, xorna ah, xalaalna ah. wadaadkii kitaabale inaan walanqalaa weeye, walanqaha iyo dhayada inuu walamsadaa weeye, walanqaha iyo dhayada inuu walafsadaa weeye, waylaalis meel wacan inaan ugu waraa weeye, ina walaban oo kale inaan waran daraa weeye. mar kale sayidka waxaa laga hayaa culimada habowga ah sidii haatuf uga jeesta, sharcigay hasaayaaniyay idin habowsiinin, shaydaanka soo wada humbucaa nadi ku haylhayle. ilaa ku naxariis. haddaan waxaa idinku guray had iyo tuurtuure, hakag iyo qalayf miidhan waa lagu habuudaaye, hawd iyo inkaar waa waxaad hore u eedeen. rabbi ha u naxariistay sayid maxamed, maansayahankii weynaa ee soomaaliyeed. tuducyadaas ayaan maansadiisi idinka soo xulay. runtii waxaynu ognahay sayidku inuu leeyahay maansada soomaalida ugu mugga iyo miisaanka badan, ugu tirada badan, halkankii daraawiishna lafdhabarta u ahayd, taarka ay wax isugu tabiyaan na u ahaa. soomaaliduna ay ahayd waayahaas mid maansada wax ku fahanta, wax ku qaadata, wixii laga gabiyo laga geeraarona uu ahaa waxaasi wax meel fiican la dhigay, la qiimeeyey oo la qadariyey. raggii hore iskama gabi jirin maalin kasta oo sida sheekada caadiga ah uguma sheekayn jirine, mansab meel midh uu gabaygu leeyahay bay la sugi jireen, madashaana ka tirin jireen. masraxa, geedka, golaha ay ka gabeeyaanna lasoo buux dhaafin jiray si loo kala horsado midhaha afkiisa ka deganaya inuu nin waliba weel u dhigto. hadda saas ay tahay soomaalidu waxna ma qoraynin, intooda badan wax ma qori jirin, oo dee soomaalidu waxay ahayd midaan qoraal lahayn, afkeenuna ma qornayn. intaa faranji afkii wax ku qori jirtay ama carabina wayba iska tira yaray. rabbi ha u naxariiso sayid maxamed cabdilla xasan oo aynu ka soo qaadanay 10kaas hal muceed ama hal kudheg ama hal qabsi midkaad ugu yeedhaba maansooyinkiisii. intaas ayaan maanta kusoo gunaanadaya. intayn barnaamij lamida ku kulmi doono fi amaanillah. nimayoo xalaalay gilgilay, gelin dhexaadkiiyo gacalkiiyo raggaygii go-aan, soo garwaaqsadaye gogashaan ku jiifaan ka kacay, gocashadaydiiyo sidii habar gablama, sidii habar gablama suudiyow, giidu waaniyo geeridii ikhwaankiibaa i gubay, gocashadoodiiyo rabbi waxaan galliimanahayaa inaan goboobaye.